qoyskani waa qoys Danyar oo ka kooban 7 qof aabahood iyo hooyadood waxayna ka mid yihiin dadka abaaruhu xoolaha ka dhameeyeen ku soo barakacay kaamamka ku yaala degmada Burco ee xarunta gobolka Daawo iyagoo miicin bidaya waxaana qoyskaasi goobtaasi ku haleelay cunno la'aan hooy la'aan iyo sidoo kale waliba caafimaad la'aan waxaana qoyskaasi oo xanuunstay la soo gaarsiiyay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Daawo halkaasi oo muddo lagu dabiibayay hayeeshee habeennimadii xalay ayaa mid ka mid ah carruurtii uu ku geeriyooday cusbitaalka magaalada Burco isagoo la geeriyooday nafaqa la'aan iyo xanuun hayeeshee waxa halkaasi ka hadashay hooyada qoyskaasi iyadoona u baaqday dadka muslimiinta ah inay soo caawiyaan dadka ciidoway baan xoolo ka bixeen imka 12 bilood baan joogay halka marnaba meel wax naga soo gelin taan joognay 7 hayst 7 mid baan intay imka bal mid baa xalay baa saddexdan imka wajiha mid kale oo buka وافر guriga mid baa ka jooga waxaan sanaya waan isba ku wandaamin waxba deem haysto waxa liya waxaan haystaa ma jireen hada waxaan wado waxaan cuno waxba ma haysto waxa liya waxaan haystaa ma jireen deena wax la qabtaan ka codsanaya waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Saynab oo ka mid ah shaqaalaha cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ee u shaqeynayay qoyskani iyo Suldaan Sheekh Cabdi Caawad oo ka mid ah madax dhaqameedkii culimada diinka gobolka Daawo iyagoona u baaqay dadka muslimiinta ah inay qoyskan soo caawiyaan isla markaasina la badbaadiyay naftooda waxaan ahay in charge-ka ama horjoogaha ee waarkan nafaqadarrada carruurta ee Burco carruurtan haddii aan ka warramo waa markii saddexaad ee imika naloo keeno bishii 6aad ee 2017 ayaa naloo keenay iyaga oo carruurtaasi 4 carruur ah markaa 4 carruur markaa shuban iyo nafaqadarro ayaa ku dhacday alxamdulillah waan daweynay ilaahay wuu nala qabtay way bogsadeen gurigoodii baa lagu celiyay haddana isla sanadkan bishii 2aad baa haddana naloo keenay carruurtii oo xanuunsanaysa hooyadoodna sida imka ay u qufacayso kale waxa xanuunsanaysa iyaduna dad 6 carruur ah iyo hooyadooda xanuunsanaya ayaan waar ka dhignay oo aan ku wada daweynay alxamdulillah iyaguna way wada bogsadeen markaana bishii 3aad 18keedii ayaan saarnay annagoo markaa wixii aan u sii heli karaynayna ee raashin ayo maryana waan ku sii caawinay oo markaa way qaateen daraad bishii 10keedii waxa la ii keenay carruurtii oo 4 ah oo aad iyo aad taxbaan u ah oo ka sii daray markaa taasina waxay ku sheegaysaa in markii wixii yaraa halkan lagu siiyo markii ka tagaan aanay gurigii ku aanay haysan care dayactir ma haystaan dhinaca hooy dhinaca caafimaad dhinaca cunto midnaba ma haystaan hooyadoodii aabahoodna waxba ma hayaan gacantii waxba ugu hayaan dejin magaalada way baahan yihiin maadaama carruurtii markasta oo la daweeyo oo nafaqadoodii kor loo soo qaado marka bartii lagu celinayo aad iyo aad bay hoos ugu sii dhacayaan iminka waxay naga maqnaayeen 22 cisho carruurta qaar waxa ka soo go'ay 2 kiilo iyo badh taana waxay sheegaysaa gurigii iyo meeshii macluushii ay ku tageen iyo inaanay carruurtii dayactir aan helin markaas waxaan codsanaynaa in carruurta aan lagu celinin halka maxaan dhahdaa dadka muxsiniinta ah ilaahay wuxuu dhibay magaalada la dejiyo waad aragtaan qoyskan waa qoys Danyar oo dadkii xoolo ka bixeena waa dad caafimaad ahaan iyo nolol ahaan bawliita carruur yaryar bay haysatado waad aragtaan midna xalay buu dhintay saddexna waa taa haysata 2 kale oo aan dhaamina gurigii bay kaga timi halkan waxaan baaq uga soo jeedinayaa ummadda reer togdheer reer Somaliland iyo dadka kale islaamka aba dadka inay la soo gaaraan gurma degdeg ah oo ay maaragtay sidii loo kafaalo qaadan lahaa sidii loo badbaadin lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa wax badbaadiya inaynu dadaalo ayaa loo baahan yahay inaynu isu qaylino waad aragtaan waxa laga yaabaa inaynu dadkeena magaalada jooga saddex waqti iyo in ka badan ba carruuraheenu ay wax cunayaan dadna wacaynka yahay waa la isku keeneegaya wallahu fi aawni al-abd ma kana al-abd fi aawni akhihi ba nabiga sallallahu alayhi wasallam qofku inta walaalkii kaalmeynayo isagana ilaahay baa kaalmeynayo danihiisa hagaajinaya waxaan baaq dheer ku dirayaa ummadda reer Somaliland meel kasta ay joogto hadii ilaahay mareerka bulshada gobolka Daawo baan ka bilaabaya inay maanta laga bilaabo kacaan dadka sidii baaqiga loo badbaadin lahaa ilaahay ha badbaadiye waxaynu u baahanahay bay u baahan yihiin inaynu markaa u kacno oo fadhiga ka kacno insha Allah taala Allah idin barakeeyo hadaad maxay dhaqashadu marbay ka tahay directo xaaraan waxaan u maleynayaa iyadoo dadkeenii qaar sidaa yahay inaynu markaa iska cunto iskaga rakaadana inay xaaraan noqonayso Ibrahim Faarax Macaan iyo Qoys TV Burco.